وقيبتي صدحات برنامجك حصوص راب أما حصوص راب وأنا كدو بينه محمد كاهن أحمد وكم ذا سراكيشي وجوري SNM يجو طلابي للعيتوبيا شركة ضمبي قيبتي لبعض كل ما توحي نو تغني سيدي لو ديار جروبي SNM أو مركز لقول لواقي كوبي سيدتكي iyadoo xagga siyaasadana laga diyaar garoobay ciidamadana ay ilaa dhowr saddex korneyl meelahaasi ka horeeyeen maxamed kaahin oo raggii uu sii diray ama saaxiibadiisii ka sii horeeyay ay ahaayeen isagu markaa waxay u taagan tahay inuu imika baxo bal markaa aan weydiiyo sheekada ugu dambeysay maxamed ducaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad adigiyo waxaan ku dhahday telefishinka cable sida aad u sheegtay waxaynu taagneen xilligii la baxay waxaynu kaloo soo sheegay in markii la baxayay ay ahayd xilli diyaar garow fara badan la sameeyey SNM la aasaasay ingiriiska lagu aasaasay leadership iyo hoggaan loo sameeyey gudahana markaa siyaasiyiintii joogtay iyo hawsheedii iyo ciidamadii iyo aqoon-yahankii iyo ganacsatadii intiiba ay ka diyaar garoobeen xilligaa la baxayay waxaa la qorsheeyey xayn saraakiil ah oo ilaa 8 sarkaal ah in ay ambabaxaan isla markii la ambabaxayay labadii sarkaal ee ugu horeeyay oo markaa xamar fasax soo qaatay rag weyn oo marmarsiya lagu yimaado lagu soo fasax qaato marka la imanayo dhulkii waqooyiga loo jiray waana la iska ilaalinaya in halkan la yimaado oo waxyaalaha mashaakilaadka dhacay baa waxa ka mid ahaa nin wasiira nin agaasimo guud ah nin maxaanku wasiir ku-xigeen ah nin sarkaaloo sarkaal sare ah Somaliland marka la imanayo burciya hargeysa dad dhulkan waxa ay noqon jirtay wax weyn oo dabada la yiraahdo muxuu hebel ka doon hadaba nin hooyadii dhimatay soo eegaya mid aabihii xanuunsanayo mid maxaan ku dhahday aas tagayo markii la soo baxayay ninka lagu labada nin Axmed Dhagax Allah raxmeeyo Allah raxma aadashiine fasax baan uga soo qaadnay generaalkii Salxan ayaan fasax uga soo qaaday fasax aniga ka soo qaaday anigana fasaxa Cabdullaahi Askar ayaa academic Axmed Guri baan joogayo taliyahayga iga soo qaaday Axmed Naaji oo ay isku la taxaayeen marka academiyada waxba dhigaysaa adu marka macallin arday baan ka watiya banduulka adigu marka aadashiinay Axmed Dhagax markii jidka mareeyeen ay waxay ku beegmeen iyada oo la dilay Cabdullaahi Saciid korneelkii alaarma Cabdullaahi Saciid ee dharkeengeeye lagu dilay ayay la kulmeen marka la kulmeenna waxa korneelka intaana halka ay nanda wala dib noqday maxaad sheekadiisa isaga ka haysaa Cabdullaahi sidii loo dilay iyo sababta lagu dilay iyo waxay ahayd inkastoo dhowr nin oo kale aan ka wareystay haddana kulli xoogaal bad ka ahayd Cabdullaahi Saciid maxaa isla ogeydeen isaga la fahantiisa Cabdullaahi Saciid sarkaal taliye guuta ka ah gaaska saddexaad guutada 8aad oo dharkeengeeye degan buu ahaa marka qaybta la ascaanood iyo ku aadan eeriyadaas xukumay ayuu ahaa sarkaal senior ah oo korneel ah oo aad mudakar oo ah oo saraakiishii diyaarsanayd ee ciidanka ka dhex muuqan jirtayna waa uu ahaa sarkaal ku jiray xidhiidhkan iyo abaabulkan iyo howlaha yagana wuu ahaa markii horena burcu joogi jiray gaaska burco taliskiisu joogi Cabdullaahi Saciid markaa SSDF ayaa howlgal waxay ka samaysay magaalada la yiraahdo Buuhoodle markaa khasaare badan bay geysatay dadkii boor bay qabsatay way xidhay isaga eeriyadiisa ma ahayn marka ciidamada had iyo jeer markuu ciidan meel degan yahay
waxaa loo sameeyaa jurisdiction area responsibilitygiisa iyo mas-uuliyaddiisa leeyahay iyo meel aanu mas-uuliyaddiisa lahayn marka taliyihii qaybtan xilligaas generaalkii Gaani ayaa markaa joogay dabadeedna waxaa la yidhi arrinkanaa loo aaneeyey si kalena looguma aaneynina adigu kacaandiid baad hayd baa layidhi aaggiisa docmana ciidan baa ka soo howlgalay isaga laakiin xadkiisii dharkeen geeyo cid soo faragelisay iyo cid maxaanku dhahday hawshaa ka gashay midna ma ay jirin dabadeedna waa uu yimi dabadeedna arrintiisii wuxuu ku talagalay ninkaa in la dilo ya dabadeedna xamar buu yimi dayaarad buu watay dayaaradihiisi qaybtan madaxweynihii buu u tegey isla markuu ka soo baxayna dib buu u soo noqday isla markaasna amarkii baa la dhiibay lagu dilayay horta cabdilaahi siciid siduu ku dhintay ilaahay ha u naxariistee geed hoostii baa lagu dilay nin kale oo aan wax kala qabsano isna meesha joogay oo waa la raaciyey oo kabtan ahaan waa la raaciyey marka haddiiba la doonayay in la dilo oo nidaamkii markaa dalka ka dhisnaa farsamooyinka noocaasa oo aad iyo aad u yiqiinay haddana maxkamadahana uu isagu iska lahaa mid badbaado oo qofka waxa la doonayo uu loo sheego la yidhaahdo ducaale sidaa u soo xukun cali sidaa u soo xukun la yidhaahdo xataa tiina lama raacino maxkamadda ciidamadu waa maxkamad hoose iyo maxkamad sare leedahay maxkamadda jaranjarada koobaad iyo maxkamadda jaranjarada labaad taana lama marin waa sarkaal sare waxna laguma oogin geedkaa hoostiisaa nima la geeyey dabadeedna waxaa la yidhi waa caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa maxaanku dhahday mas-uuliyaddiisiiba ka soo bixi waayey kan dhag waa lagu dhuftay halkan goraya cawl SSDFtu way nagu soo weerartay iyadoo ciidamadii dargigii markaa jiray ay gacan siinayaan goraya cawl way qabsadeen cidna looma dilin cidna looma toogin waayo cid dan laga leeyahay oo kacaandiid loo arkaayo ayaan iyada markaa goraya cawl joogin marka sidaasay cabdilaahi siciid lagu dilay waxay kuu maraysay labadaas yimaadeen dabadeedna burcay habeenkii u hoydeen saraakiishii halkaa joogtay axmed dhagax axmed daahir nuur iyo aadan sheekh maxamed axmed aadan shiine burca markii ay yimaadeen waxay ugu yimaadeen saraakiishii halkaa joogay oo iyagu laftoodu yacniga arrintii xumayd ee dhacday ay aada u taabatay korneylkaa la dilay oo doonayay in ay iyaguna ay action sameeyaan marka waxay u yimaadeen iyagoo operation diyaariyey operationkaa way ka joojiyeen iyaguna inay dooneen in operation sameeyaan raggii markaa operationka sameynayay ee maxaanku idhaahdayey hawshaa waday waxaa ka mid ahaa abubakar ismaaciil abubakar shaaryare allah yarxam iyo allah yarxama gacma dheere ayaa ka mid ah qorshihii bay uga warrameen iyo barnaamijkii dabadeedna waxaa la yidhi halkanina dee meesheenna operationka noocaasi ka fulin lahayd maaha xiniin adag baa layska taabtaye xiniintii kale la taaban lahayd meesheedii maaha baa la yidhi halkan imika sidaasay iyagu ku soo baxeen degaani marka halkaa ma joogin inay gobolka uun operation ciddii ugu mas-uulsanayd ama meel maxaanku dhahdaye siyaasiyan wax laga dareemi karo inay sameeyaan marka halkanay yimaadeen hargeysa yimaadaan barnaamijka waxaa ku jira aan maalinta horena xoogaa dhinac ka taabtay marka la baxayo in mujaahidkii maxamed cali uu tallaabo maxamed cali markaa wuxuu hayaa ciidan la yidhaahdo guutada afraad oo soomaali galbeed jabhaddii WSLF ka tirsanaan jirtay laakiin hadda ka baxday oo
wada joogi kari waayey waay oo dabadda isaga halkan qaybtan laga maamuli jiray waay jabhadda markaa wuu sii saaray markaa ereyadan duryo meel la yidhaahda siyaarada ayuu sii tegey barnaamijkaygu markaa waxa weeye inaanu halkaa isugu tagno siyaarada inaad isugu inaan halkaa maxamed cali isugu oo tagno ciidanka afraad u oo ciidanka afraad isugu tagno oo isaga iyo qolada etoobiyaanka aanu halkaa ka wada galno maxamed cali markaa nin jabhada oo jabhaddii soomaali galbeed isaga iyo nin kaloen cali nuur la yidhaahdo suuriya ku soo tababartay rag watay cadan cadmaawiyiin ahaa BLO la soo tababartay oo ka standard sareeya aad iyo aad uga standard sareeya jabhaddii soomaali galbeed ay ahayd waay guulo fara badan iyo wacdarana ka geystay dagaalkii Ethiopia intii gudaha ku jiray waa labada nin ee ilayska lagu raadinayeen way way ahaayeen marka iyadoo cid kale la socota mooyaane isagana aaminaadara jirtayoo halkaa muu tegi karaynin dabadeed halkan markii la yimi oo arrinta cabdilaahi siciidna ay taagan tahay ayaa aadan shine iyo axmed dhagax halkan hargeysa yimaadeen barnaamijku markaa waxa weeye inaan anugu halkan imaado hargeysa waay oo fariin u keeno dabadeedna burco tago waay qoladii kale burco ka baxaysana aan anugu ah halkaa ka hogaamiyo fariintaad keenaysa maxay ahayd fariintan keenay waxay ahayd qaabkii loo baxayay sidii la isugu imanayay ayaan maxaanku dhahday u keenayay iyo qoladii xidhiidhkii halkan da joogtay allah raxme mujaahidkii lixle ayaa xidhiidhka halkan madax ka ahaa waay markaa ninka dahwalahan kala wasacayaana waa isaga sax markaa qoladanna way iswareysteen oo way iga soo horreeyey aniguna inaan warkii u sheego qoladii kalena inay burco imanayso marka halkaa markii ay maraysay ayaa gaaniid ku yidhi noqda waay ya axmediga xiyaadaysiin ku noqda waay ya waay dabeedna waxay ku fakadeen oo fakiyey korneel qaraakiishii hore sinayar oo nin aad u fiican ahaa allah raxmaad geeriyooday hore gaari shil gaari ku dhacay oo gaaska koobaad xigta xukuma cawaala bustaale ayaa arrinkaa bixistooda fakashadooda lahaa waay sababtuna waxay ahayd aadan shiina markii qaybtan waa nalaga wada mastaafuriyey dhammaantiin dhammaantayo qaybta lixiyad talada qaybta 26aadba marka aadan shiina markii halkan laga soo kaxeeyey taliyaha guutada ayuu ahaa taliye guuto ayuu ka ahaa cabdilqaadir meel la yidhaahdo jiri ka sokaysa booraba galbeedka ka xigta oo gaaska koobaad ka tirsan kaaskii uu xukumi jiray weeyaan marka cawaala bustaale allah yarxamo dabadeedna cawaalaa ku yidhi imuu siinin xil wareejintii aadan shiine anaa soo celinaya xil wareejintii buu soo bixinaya dabeedna aadan shiine saasuu ku kaxeeyey maalintaa isla maalinta arrinkaasi uu dhacayo gaanina wuxuu tegayaa jabuuti qaybta wuxuu kaga tegay nin la yidhaahdo boodhe genaraal noqday markii dambe warshadda kabishta haystay ayuu kaga tegey oo ugu sineersanaa saraakiisha markaa qaybta joogta shiina markuu soo marka amar buu dhibay markuu soo celiyo dayaaradda hala saaro dayaarad baa halkan iska taalla ninkaan markaa la doonaynin ee sarkaalehee loo ogolan inuu meesha joogo dayaaraddu baa la saaraya soomaad garan marka adarsa dayaarad qudhow nin sida marka cawaale iyo shiina way isa soo raaceen xil wareejintii wuu soo bixiyey boodhu u keenay boodhu ku yidhi xil wareejintii wuu soo sameeyey dareerahoodii hasii macsalaameyeen isagii saaxiibkiiyo boodhana arrinkaa wuu ka bareedhayo wuxuu ku yidhi okay dee reerihii iyo soo macsalaameye iska soo diyaargarooba isagii axmed dhagax reeraba laguma baydhine dayarad baa lagu fadhide waa la dhaqaajiyey waxay ku sii qayeeleen cobisha halkan cobasha isha cobasha maqaamkan sheekh cumar ayay iska sii fadhiisteen casarkiina way ka caraabeen gaadhigiina xadkay kaga tageen marka iyagu siyaaradii xaggii inta maxamed cali umay leexanine waxay u leexdeen xagga xarshimeed bay u leexdeen oo bari bay qabteen xoogaa halkaa way ka lumeen
dabadeed anigu markii aan ini goormaadkii markaa anigu markaa waxaan iyagoo shalaytoo kala baxay shaloo kale iyagoo baxay baan waay markaan sidaa isu soo taagay labadii nin oo horreeyeen isla taagay ayaa ii sheegay weyli ninkii baxay haa waay nin waa nin sarkaaloo saraakiishii hore jabhada tagtay ah oo la yidhaahda ubsi cigana waa la yidhaahda waay iyo alla axmed cawil curyaan labadooda ayaa nimankaas ayaa ii sheegay waay waan xasuustaayoo waxaan ku kulannay halkan imika hodheelkan uu ka samaysan yahay city centerka in yar shishadeedoo cawil curyaanna hodheel yaroo halda fooq yara uu ku leeyahay barta iyagoo taagtaagan dabeedna waxay ugu dhahdeen qoladaasina way baxday dabeedna lixlaannu markii bay sallay fiidkii lixlan dhuumashuu ku jooga haddana isaga idin xukuma yaa dhuumashana uu ku jooga isaga lixlan markaa dhuumashada weli ma gelin laakiin caadi buu markaa u jooga laakiin waa laysu muuqda yaa meeshaa iyo ninkaa odayga ee hargeysa xukuma iyo dowladda waa laysu muuqdaa lixdaannu kulannay dabadeedna markaanu lixla kulannay gidaar yaroo waxaanu isla tagnay sidii odayaal maalintii adhi iibiyey oo dilaalkii qaybsanaya meel tagaa siduu istaagto oo halkaa inja ay ka furraan jirtay bakhaarka bridjka marka laga tallaabo cabbaar la socdo ayaanu iska fadhiisannay qolada talowgoodii waanu isu sheegnay dabadeedna markaa barnaamijkii ku talagalka ee raggu ay ku soo bixi lahaayeen oo halkan aadan shiine iyo muuse nadiif iyo muuse bixi baa ka bixi lahaa waxbaa iska bedelay qoladii burco aanu isugu iman lahayn aanu iska raaci lahaynna way anigu qaybtana ka shaqayn jiray waxaa la saaray mas-uuliyadoo dhan se adigu gaadhigidka lagu baxayana diyaari ya jidkana iyagu qaybtan kamay shaqayn jirine inkastay degaanka u dhasheen anaa qiimay qoladaana barnaamijkoodii wuu isbedelayaan aadan muuse jibriil imika halkan inala jooga alla raxme aadan salaamaan saddex aadan bahan iyo aadan maxamed sabakal marka inuu lixle qoladii xamar fariin ku celiyo oo yidhaahda barnaamijka sidaasuu u kala go-ay qolo waloo soo baxaysaaba barnaamijka hore laguma socon karay hayste berto dabeed markaa anigana wuxuu ii diyaariyey gaadhigaan ku bixi lahaa nin mujaahidoo markii ad foorkii buuraha lasoo galay ku dhintay mahdi isxal gaadhigiisii baanu maxaan ku dhahdaa ayuu ii diyaariyey habeen dambe oo kale inaan ku baxo waxay sii raacayalaa iyo allay badee cabdiqays iyo inan iminka ingiriiska joogto libaaxa la yidhaahdo lixlana adeer u yahay xidhiirka iyaga gudahana halbowlo weyn iyo qaybka ah ya waxa la xasaynayo waxa la qarinayo kulamada gaarka ah xalaaliyo waxaasoo dhan nala wada cabdiqaysna way raacay may halkan u joogo lixle halkan la joogo aduu markaas saasaan anigu ku baxay marka qoladii dalyaqaanka ahaydee uu maxamed cali noo soo dirayna aniga waanu sallay nin imika halkan joogo oo afraad ka mid ahaa oo yaraa oo haddii jeer isaga la socon jiray oo uu barbaarsaday oo maxaanku dhahdaay marba meesha contactkiisa uu samaynayo la sameeya aduu markaa duryaan ugu tegey gaadhigaasi wuu iqaaday allay bade baan sii marnay magaalada dacalkeeda markaanu maraynay ayaanu gaadhigii iskaga degnay dabadeedna dhinaca bari ayaan ayaanu toga ka tallawnay dabadeedna halkaasaanu durya ma intaanaan tegin siyaaradii maxamed cali u tegnay reer jidka yaalla baa shaah noo sii kariyey canjeelo wanaagsan nooma sii siiyey waa anigii daahir yare maya cabdiqays inantii way soo martay iyagu de gaadhigoodiiba dib u soo raaceen oo markaa de calaamadina lama socoto cidna lama socote waa gaadhigaasoo way iska noqdeen iyaduna waa inan xarifada waxay soo qaadatay dharkan cadcad ee dhakhaatiirta oo waxay tidhi haddii hadal tarabal yimaado gabadh baan ka soo umulinaya iyo waxbaan odhanaya anigaa neersiga
ولبدي بشي فبراير لبي سديتك marka waxaad tagtay durya siyaarada tagtay duryana xoogaa ku jirta waxaan calina waan suuraysan halkaas iska heshay waa xilli aad u qabooba ah ciidanku waa mucsur nimankii aan markii hore soo sheegay ee afraad hayn jiray raggan baa mushtariga ahoo halkan joogay iyo niman qaadlayaal ahoo joogay tagwa jaale ayaa arrintaa xidhiidhin jiray waay qoladii baan warqad u qoray waay sakrat ah haye laba ninna waa loo dhiibnay markaan ku nidhi soo taakuleeya ciidankii ha waxay wadaanna u soo diray oo duryo iyo bankiyo february waa la qalalayaa marka bustayaal yabay u soo direen gooyaal yabay u soo direen halkaasay taakuleentooda ka samayn jireen qoladii etoobiyaanka ahayd baanu cid u dirnay ya waa xilli jiilaaloo way biyalaa yihiin qoladii baa biyo nooga soo dhaamisay madnaan u sheegnay inaan u imanayo dabeedna qoladiina taarkii bay direen duryo guutada xukunta taliyihii guutada ayaa noo yimi dabadeedna maxamed calina waanu saraacnay waanu iswaraysanay maxamed calina inuu halkaa joogo ayaanu ku heshiinay biyahana ay halkan uga dhaamiyaan wixii warana ay kala qaataan isaguna uu iman karo ay ka warhayaan iyo taakuleyntiisa xiriirkoodu waa sameeyay waxaad ahayd sarkaal ciidanka Soomaalida ka tirsan waliba sahan taliyaha halka cadawgii ugu weynaa ee uu la dagaalami jiray yaadi si heshiisiyay labadiina waxaan isu kiisay sheegay adigu imanaysa iyo xiriirkadiisa waxay isu kiisiyay taliyaha guutada de wajigiisu maana garanaynin isaga laakiin waan garanay anna way garanaya waa taliyaha guutada 124aad oo abay fuulaan budigana ya dhowr jeerna operation baanu ku sameynay duryada ya ciidankaas halkaa markii uu joogeen aadashiinayo aniguna qaybtan howlgelinteeda aan haystay de markaa waanu isgaranay saraakiishu waxay ugu fiican yihiin markay senior officers yihiin dagaalana iskaga hor yimaadeen qadiyad labada qoloba u baahan tahay inay xidhiidhiso marka imika waxaan xidhiidhinayay daanakuna meeshan aanu ka tagaynayoo meel kale aanu dhufays ka dhiganaa baanu tagaynay ayaguna meeshii culayska ku ahayd cid ka soo baxda bay maxaan ku dhahday dagaalamayay ka soo horjeeday iyagu ciiday ku jiraan ay xidhiidhi bay ku jiraan marka aad buu soo dhaweeyay marka W haddii aad eegto jabhadii maxaan ku dhahday TPLF Tigray Liberation Front mala sanaawi madaxda ka ahaa de waxay ahayn Etoobiyaan bay ahaayeen dowladdan Etoobiya ka tirsanaayeen haddana dowladdii maxamed said barre magangeliyay iyo taakuleen ay kula joogeen markaas sarkaalka waan israacnay habeenkii wuxuu igu martigeliyay taliskiisii maya abay fuulaan jigjiga ka sokaysaa jigjiga miyaa nimikaba ku geemsaa waxaan jecelahay inaan caawa iska sheekaysanay si iska informala adoo waanu ka tagnay subaxdiina waxaanu tagnay jigjigaanu tagnay jigjiga markaa gaas baa talis gaas baa halkaa jooga nin korneeloo wagaaya la idhaahdo ayaa taliyaha gaaska tobnaad ee jigjiga ah dabadeedna waanu iswaraysanay isna markaa labadeeda waxaanu isu sheegnay inaanu isgaranayno isna garanaya baan ku adigu dabadeedna markaa waxaan ka sii kaxaystay markaa maxamed cali laba ninoo ciidankiisiia oo hubaysan ayaan sii kaxaystay korneelkuna waanu sii raacnay habeenkiina way ila joogeen jigjiga markaan ka tegayana ugu ogolaaday askar guriga wadada sii kaxaysatay هذا شيء دبلوماسيتنا سراكيسنا بروتوكول بيلي واي حق بانو لا هبان كودا way raacay security wagaay markaan u tagayna sidii baan ku yiri waay labaduba afraad ka tirsanaayo waay ala ahmed dhagowna bari dhaw ku dhintay jaalo ku dhintay daahiriyana wuu noolyahay
imika ilaalkaba jooga wagaayana labadeydii way ogolaaday herer baa la tegey ya marka aadashiine iyo axmed dhagaxna xarshin bay mareen jigjigay tageen la geeyey herer baa la geeyey ayagu marka adisababay ayay waay anuu markaa aan herer tegey dee laba casho meelaha waxaan la sii joogay ninka la odhahdaa maxamed cali maalinna dee jidka iga sii qaadatay oo anigan korneelkii guutada xukumay sii raacay maalintii dambena jigjigaan joogay oo dee gelin waan ka soo baxay oo gelin dambuun baan herer imi dabadeedna markaa waxay ii sheegeen in aadan saleebaan yimi labadaydii bodhgaadhna hudheel baa lay seexiyey aniguna hudheelka ugu weyn dirar dhabe del 5 star class hotel ayaan anigana leegay dabadeedna qoladii waxaan ku yidhi markaanu iswaraysanay miyaad sugaysaa mise adisababaad sii tegaysa ya markaa waxaan ku yidhi militariga ah ee Ethiopia maxaa loo sii sheegay ila waa kuwan moodo inay laamideediisii fadhiyaan markaa kii tagaba la soo dhaweynayay markaa amar bay qabaan waxa la yidhi markaa markay soo galaan saraakiisha soo kaxeeyo meel hiblaayo keenay mise idinkaa ka sabaystay inaad meesha isugu imanaysaa ma horta sideedaba barnaamijkayaga waxa uu ahaa dee inaanu urur jira oo la dagaalamaya taliskii kaledi taliska ahaa aanu ka tirsan nahay ayaa barnaamijkayagu yahay axmed dhagax iyo aadashiina ninkaasay usii sheegeen aniguna kaasaan u sheegay inaanaan keligaya ahayna dad badani ay soo socdaanna waanu sheegay in dad badani dibadda ka imanayaanna waanu halkan doonayna inaanu xarun ka dhiganana waanu sii sheegnay in fact markaa gacanta ugu badan waxaa na siiyey ninkii sahanka joogay herer oo markaa aanu tagnay mijir ahaa gaashaanla ahaa imaam maxamed reer walla ahaa nin muslimana ahaa waxaan odhan karayaa ninkaas marka arrimaha Soomaaliya iyo Ethiopia laga hadlayo ninka ugu adag ee ugu macluumaadka adag ee arrimaha Soomaaliya ka warramaana isaga ahaa oo taliskiisana taliska qaybta bari baa la odhan jiray taliska qaybta koonfureed oo nagiila joogaana wuu jiray macalka nagiila isaga wax laga weydiin jiray marka ay arrintu adkaato ninka ilaa iyo dergiga ka report gareyn jiray arrinta Soomaaliya ayuu ahaa xitaa card caad special card ayuu lahaa uu ku galo xarunta maxaan ku dhahdaa madaxtooyada marka arrimaha laga hadlayo general division la yiraahdo isaguna joogay oo saraakiisha ugu sameeyay Ethiopia dagaalkii Korea galay kontonadii ayuu ahaa marka iyaguna reportaad wanaagsan ayay direen marka waxaan ku dhahay aadan baan sugayaa aadan Saleebaan markaa gaarigii lagu tala galay inaanu annagu kaxaysano ayuu wataa oo xamar kaga soo baxay wadaamo gobu ka leexday balidhiig buu maray laba nin baa lagaga daray halkaasuu dabadeedna xarshin ka soo galay ya halkaa markuu xarshin maray buu labadii nin dhigay labadii ninna halkaasay dib uga soo lugayeen marka halkii baanu tagnay aadan iyo anigu halkaa herer baanu isugu nimi dabadeedna gaadhigii labadii nin ee aniga ila socday ya oo daahiryare dareewal yahay ayaa gaadhigii dib u soo kacay way hubaysan yihiin qoryahoodii iyo boojka alaabtoodii bay sitaan dabadeedna waxaan ku nidhi xoogaa alaabaana noo sii saara laalo dabadeedna xoogaa yaroo daraay raashinaya xoogaa rasaas iyo in qorya ah iyo intiiba iyagana la sii saaray maxamed cali iyo jigjigana taar baa looga sii diray laydhi nimanka ayaa alaabtii sitaana la socda sidii baanu isugu tagnay adisababa tagnay adisababa markii aanu tagnay markaa waxaana qaabilay maxamed calina halkan aanu kaga tagnay waxaana qaabilay wasiirka arrimaha nabadgelyada wasiir gaara bay u lahaayeen markaa waxay odhan jireen Minister of State and Public Security markaa waxaanu ku jiraa toddobadii nin executive-ka ahaa ee dergigii ka soo hadhay dergiga intiisii kale waa la kala diray oo
wasiiro iyo barasaabo iyo xilal kaloo dowladeed iyo xusbiga qabanqaabadiisii marka ay shaqo xusbiga shaqaalaha Itoobiya la sameeyay waxaa loo diray waana dadka arrimaha security-ga mar walba mingistay la fadhiya reportkeygii buu markiiba u geeyey dadna waxana lagu yidhi maxaa u baahantiin marka waxaan ku nidhi number 1 waxaan u baahanahay ururkaygii SNM madaxdiisa iyo leadershipkiisa waxay joogtaa Ingiriiska joogtaa qaarna waxay joogaan dalalkan Carabta waxaanu doonaynaa inay yimaadaan markaa weli markii ay ku dhawaaqeen April 1982 ee la dhisay taliskii siyaasadda ugu horreeyay SNM adsoobo may imano weli ما يمنو هذا السبب وحا هيستا SSDF با هيستا marka idinka ka horeeyay عبد الله يوسف با هيستا saraakiishii la أنا كاسا ugu horeyna way halkay marka dabadeedna waxaan ku nidhi waxaan doonaynaa xisbiga madaxdeeda ay yimaadaan dabadeedna waa naga aqbaleen way marka instruction baa la bixiyay meelaha dadkeenu ka imanayo dhan safaaradahooda la siiyay lagu amray ciddii SNM ee imanaysa inay u facilitate gareeyaan oo u sahlaan imaatinka Itoobiya ku imanaya ya marka sidii bay ku yimaadeen markii xidhiidhkii aanu samaynay ee iyagii wada xidhiidhnay oo qolada Djibouti joogtaana wada xidhiidhisay ayaguna ay London nagala soo xidhiidheen qoladii Jidda joogteena Jidda nagala soo xidhiidhtay Imaaraadkuna ay nala soo xidhiidheen ayaa dabadeedna la ogolaaday in ay iyagu yimaadaan marka waxa yimi guddigii fulinta SNM marka waxa leedahay guddi fulin oo qura guddigii fulinta ugu horeysay Axmed Jimcaale ayaa Allah chairman ka ahaa mudayr dabadeed Axmed Jimcaale la bedelay duqsi baa markaa ka acting chairman ku sima gudoomiye iyo xogeeye guud isaga ka ah marka Ingiriiska waxa ka yimi isaga Xasan Ciise Jaamac Ahmed Zaki Sayidi halkan joogo Saciid Cabdillaahi Cigaal Cabdisalaan Yaasiin qoladaasi waxay ka timi إنجليز كتبوا محمد حاش علمي يا أبي إنجنير أبي من كندا شو هالدنا مرمرنا ينوي مادان لبدا السنة قاهري شوكا يا يقول قاهري كي مادان وقال هذا ويكدم بيا تبدا ماشي عن سجون نمي markaanu meeshii isugu nimi baa inta gudida sare ee SNM-ta ah marka waa inta adiga ka sheegtay way yaa ka maqnaa idin ka maqnayd marka waxay ku soo wada xaroodeen Itoobiya ku soo wada xaroodeen way sabab garan sax marka qoladii kale dawladyaashii kale ee gudiga fulinta sameeyay ee SNM waxa ka aasaasay hawlaha ku jiray وبدأ السعودي كتشوجانا أو عثمان أحمد حسن كمدي هاي عثمان الدولة حسن آدم وداديت كمدي هاي أحمد كيس كمدي هاي حسن ميجا كان مكوستا إنه كسر دافنا كمدي هو ولالك عمر ميجا كمدي هاي سعيد عبد الله إني كمدي هاي محنكو ده رج فرابدانو محنكو ده كمدي هين والكل والله يقرأ عليه هانا يا هذا مرمر مقعيد قاركو تسوي مساري وايد يقول السعودي كتشوجان dad markaanu inteeda ay sugu nimi oo qoladaasina markaaba degdeg ay ku yimaadeen ayaaba wayfkii ku xigay oo xoog ah xagan carabtana ka yimi xagan gudahana ka soo baxay oo markaa gadar waxa ka yimi saddexdii sarkaale u horreeyay Allah arma Cabdilqaadir Koosaar iyo Allah arma Cali Ismaaciil Cali Hayaan iyo Cabdi Ibraahim Jaaladiid intaas gadar bay ka timi saraakiishii kale faraha badneed markaa waxay ka yimaadeen gudaha ka yimaadeen iyo niman aqoon-yahan waxa ka ugu horeeyay Muuse Nadiif iyo Mijir Qaadi iyo Madaxdiin iyo
محنكو رهداية عبد الله علي أبسي عدو الله يرحمه عيسى عراقتي ديب قري شكيب سلطان عبد القادر أبو بكر شاريرة قعمر دايرة سليمان بايلوت إسماعيل آدم فيلينشي كرنداش رقاسا مركا gudaha ka soo baxay ayaa gudaha ka soo baxay waxa yimid dabadeedna qoladii fanaaniintii waaweynay ayaa iyagana la mid ahaa soo baxay hadraawi allah raxma gaariye yaasiin dheere allah raxma gamuute rashiid sheekh cabdilaahi rashiid garweyne colkaasina wuu yimi markaa durba markii annakuna aanu nidhi dadka wuu imanaya intaasina ay markiiba yimaadeen February wiigii ugu horeeyayna annagu aanu tagnay iyaguna 31 January ay tageen qoladanina February gudahoodii ay timaaday Ethiopia ba majnaanad baa ku dhacday sidan la loo soo yaacay loo socdo dabadeed markaa iyaga wixii aanu ku dhahay weydiisanay waxay ahayd in de nala siiyo in aanu dagaalka iyaga siyaasadeed iyo ka jabhadeed ciidanba inaanu halkan ka furno oo dawladda Ethiopia na aqbasho saldhigyana na siiso xarunana la siiyo dabadeedna isla markiiba kulan degdega ayaa nalooga ballamiyey maxaan ku dhahday Mugiste diradaba isagoo joogaba maxaan ku dhahday hawda halkan ay igu imanayaan halkii baan ugu tagnay intiiba uu naga aqbalay intiiba marka waxa weeyaan waa February ba waa February wali February dibaan ku jirnaa may dhamaanin dabadeedna qolihii dibadana waan isla tashanay dabadeedna waxaanu go'aansanay inaanu Congress qabsataan aanu qabsano shirweynihiina waa nala ogolaaday marka ergada shirweynuhu waxay ka kooban tahay erga ka timi Saudi Arabia oo ugu badan erga ka timi khaliijka Imaaraadka Carabta erga ka timi maxaan ku dhahday UK Ingiriiska ka timi qoladii gudaha meel cid kaga daray waa idinka cadday qoladii gudaha annaka imika ka soo baxay dawladda ay isu timi waana laga ogolaaday Nazareth ayaanu shirku qabsanay intaanaan shirka tegin marka waana loo ogolaaday saldhigayagii durya inuu da saldhig rasmiya yahay waanu isla ogolaan in intaa kuleyna ayna siiyaanna waanu isla ogolaan xoogaa taakuleyna ma badnayn waa nala siiyey waxaa kaloo nala ogolaaday inaanu aagga soo marno marka aagga aanu soo mari karnaa waxa weeye waa xarshin laanqayrta intaa galbeedka waayo halkaa laanqayrta marka la joogay xarshin bariba loogama baxo ninka gaashaama tegaya iyo daroor macal Etoobiyaanku waxa ay maraan jigjiga dhagax buur awaare daroor gaashaama saasay u tagaan oo de waa la haystaa dhulka de waxa haysta jabhadii Soomaali galbeed ayaa dhulkaa marta ayadaa dhulkaa ka diiga ayaga looga baqaya intaasoo qura ayaanu soo marnay dadka degaankana waxaanu ku nidhi waa dadka iyagii Ethiopia way joogaane dawana la taakuleynaya taakuleyntiisana waa in la ogolaado taana waa nala ogolaado dabadeed markaa xafiisna jigjigana nin baa noo jooga ayaanu dhignay waxa yaree dabadda nalooga soo ururiyo anna waxaanu ku bilownay SSDF lacagtii Libiya ku bilowday waa intaydan SSDF gelin Congress-kii ugu horeeyay waa soo wada oo aad isugu timaadeen Nazareth baa laydin ogolaaday Nazareth baa nala ogolaaday inaanu isugu nimaadno kontonayaan qoladii kale gudaha ku jiray nabar baa soo baxay dictatorkayaba ka mid ah Maxamed Cabdi Ismaaciil qoladii intellectualka hayda ayaan toran ku daray xiriirka joogay adigu Nazareth baan isugu tagnay Nazareth baan ayaanu ku shirnay
كونغرسك شيرمان وحنو كدغني عبد القادر كوسار شركه markaa waxaan ku sameeynay in structure-ka SNM de xogaa lagu sameeyo London markii ay ku shireen structure-kii lagu sameeyay wuxuu ahaa chairman iyo general secretary iyo xogayaal guddi fulina dabadeed markaa waxaan ku sameeynay xilliga ay ku haboonaatana central committee aan sameeyno inuu xisbigu yeesho chairman vice chairman general secretary guddi fulin gola dhexe ya san ku sameeynay dabadeed intii waa la adabtay waa la isla ogolaaday chairman markaa waxa laga dhigay Sheekh Yuusuf Ali Sheekh Mala vice chairman waxa laga dhigay Xasan Aadan Wadaadi Allah yarxamah labada baan naxariisto general secretary waxa laga dhigay Allah yarxamah Ahmed Ismaaciil Cabdi Duqs ayaa laga dhigay dabadeed markaa halkaa laga yimi baanu saldhigyadiina qabanayna intan saka markaanu soo marnay ayaanu dabadeedna aakhirkiina nidhi maxaan ku dhahdaay saldhigyada barigana aanu meel ka furanno dabadeedna waxaanu ka furnay gaashaamo waxaanu kala ka furnay meesha la yidhaahdo rabaso ayaanu ka furannay ودول مركا آد حدك وقفق ده كي قاشامو يلا يبريجي ده بالد ده يهذيرة يقول أنت سان صلّي يرير وآد أقابن مركا أسكر أنا قاعد حيوك هذا بيش إذا كان أفراد مو عيدا كلهم نشوف الهاي ولقد حنا فريسان صلّي كده كسر فريسان عيدا الحبشية يروح حبشية ما يددك بمركا نوي ما يقولي جودها كيمي باين وحكي بدتك الدجان كدتك هو نقول بير أسكر بها دتك سمسة ده دي متوابر لو باهني لا ما قالوا يسوق شريف ده أسكر هو عيدا ماذا عيدا ما دي مركا الدولة كصاب حي ده محن كوده هذا أنا أسكر أحمد وددتك جودها كيمي أيهين dadkii deegaamadan aanu tagnay aagan aanu tagnay deegaamadan ilaa gaashaamiya baaladha iyo gowla laaliyo dhulka ka tirsan ya ka tirsan ayay ahaayeen oo iyagaaba qaybtii ugu muhiimka ka qaatay dad waxay ahayd dadkii dhalinyarada ahaa ee halkan cidhiidhiga laga saaray markii uu faya ay mudaharaadaysay iskuuladii la wada xidhxidhay ayaa maxaan ku dhahdaa ka soo baxay oo maxaan ku dhahdaa halkaa yimid dabadeedna xilliyadii ugu horeeyay wax yaro xirada gudaheeda loogu sheegay mooyaane maanaan awoodin inaanu markiiba samaysano xilliyo tababar samaysano waayo taakuleena uma haysano qalab iyo hubna uma haysano intaasi markaa isqabsatay aanu hawshaa isla galay dabadeedna markaa dhowr hawlgaloo yaryaroo wanaagsan weli waa bishii ugu horreysay ku jirta waa bishii ugu horreysay bishii ugu horreysay waanu soo dhaafnayoo كونغرسكي وانو قبصنايو كونغرسكي مركانو قبصناي جيجيغانو حارون كسميسنايو وانو سو فافنايو حرشين قيب بانو كسميناي gaashaamana qayb baanu ka sameynay marka waxaanu furnay saldhigyadii kii duriyo uu noo furay warax raamaaliya qoladii militariga wadii sheegtay in sanamahan u sameyseen qaab gudoomiye xag qoladii militariga naqaab baanu sameynay maxaad samaysteen waxaanu jigjigaan isugu nimo waanu ku shirnay talis ciidan baanu sameynay taliye ama abaanduule waxaanu ka dhignay ninka lagu dhahdo Cabdulqaadir Koosaar Allah yarxam saraakiil kale oo aanu ku xoojinayna taliskii guud ee ciisanamta ayaanu maxaan ku dhahdaa u xil saaray in ay halka inay abaabulaan oo diyaariyaan isaga iyo ninka lagu yiraahdo Muuse inta Aada Saleebaan iyo Muuse Nadiif iyo Ahmed mire oo isaguna mar dambe noo yimid Ahmed mirena markaa waxaan u dhibnay jigjiga dabadeedna dugsiga ugu horeeyay tababarka ayaanu furnay oo dhalinyaro u badan dhalinyaradii iskuulada tababar kumaandoosa u furnayo Ahmed mire kumaandooska ahaan jirtay hawsha uu kooriska diyaariyay waxaanu ka furnay Baabil intee waxaan kontoneeyahay dhalinyaradaas marka dhalinyarada waa naloo hubaynaya annagana saldhigyadii wax badan lama siinine 500 oo aska ciidana hubkood bay nasiiyeen
dabadeedna waxaanu go'aaminay nidaam qaab ciidan baanu samaynay qaabka ciidan aanu samaynay waxay ahayd inaanu qaybta bari iyo qaybta galbeed samayno marka xarshinna waxaanu ka dhignay talis qaybeed gaashaamana talis qaybeed baanu ka dhignay iyo saldhigyada yaryare maxaan ku dhahdaay iyaga maxaan ku dhahdaa hoos jooga marka labada waxaa noo sahlan dhinaca galbeedkaa noo sahlan waayo waxa weeye jiidan lagu dhahdo qaaxo waxay reer miyigu u bixiyeen waddadii dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya 1964 kii markii la heshiiyey Khartoum baa lagu heshiiyey Suudaan heshiiska waxaa loo bixiyey Khartoum agreement dabadeedna waxaa lagu heshiiyey xadku markuu kaa yahay laba wado oo min 15 mayl iyo 15 mayl 15 mayl waxa weeye waa 24 kilomitir 25 kilomitir inay qolo waliba xadka dhinaceeda ka samayso ya innaka teen waxa ay martaa maxaan ku dhahdaayay aagii markii laga sameeyay aad uma soo faafino waxay martaa jeeyalaaye iyo la yiraahdo waraabaye nasiyo dhexdooda galbeedkana may soo gaadhin barigana aad ugu may fogaanin marka Itoobiya aad u samaysay ilaa jiida duruqsi ka shaysa ay iyadu gaadhay qaaxa loo bixiyay oo wadadan dheer ee sidii qaaxada daloosha horta qaaxadu sidii ku soo baxday waa sidaa marka aagan galbeedka ayaa ciidamadu ilaa iyo jiida degan yihiin degmadan Xarshin qurax raamaale iyo dabil weyne marka dibile iyo eeriyadaasi degan yihiin xaggan bariga gaashaamo quri degan yihiin gaashaamo daroor meel kale oo aanu halkaa u sii dhaafi karno waa tuugo adigu maxaad ka noqotay taliskii waxaan taliyay qaybta ugu horeeyay ka noqday marka waxaad qabsatay qaybta bariga galbeedkana aadan shiin ayaa hayay dabeedna waxay idinka horreeyey intayna halkaa isla dhaafay SSDF lacag badan bay haysatay tir badan bay lahayd Liibiya caawinaysay marmar qaarkood waxaa la yidhaahdaa dowladda Itoobiya iyada ka xoog weyn markaad dhinac u eegto lacagta ku socotay rag hore oo badan oo aan waraystay oo siyaasiyiin iyo military bali waxay sheegaan in cidhiidhi badan laydinku geliyey inaad SSDF ku biirtaan halkaa idinkuna jabhad yaroo kale ka noqon lahaydeen laakiin markii dambe waad ku guulaysateen idinka raggiinni militariga ahaa iyo qoladiinni siyaasiyiinta ahaa inaad gooni isu taagtaan mingistuna wuu idinka oggolaaday sidee ku dhacday arrintaas orda marka ugu horreysa SSDF waxay ka abuurantay inqilaabkii dhicisoobay 1987 isla markii Itoobiya laga soo noqday Abril 12 xamar ka dhacay marka Abdullahi Yusuf baa madax ka ahna Abdullahi Yusuf marka dagaalkii 77-78 aaga koonfurta ayuu taliye ka ahaa qaybihii hore kaga soo sheegnay lagiili ciidanka marka uu hayay sidiisa loogu ururiyay saraakiil hawshan inqilaabka kula jirta iyagoo sidoodii u abaabulan bay ka baxeen baydhaba sidaasay ku galeen Kenya iyagoo abaabulanna saasay Kenya dayarada looga soo kireeyay baac mushtariya dad badan oo deegaanka ay ka dhasheen ahaa marka saasay ku yimaadeen meesha lagu dhahdo Itoobiya run ahaantii markaa iyagu xilliga ay yimaadeen xilligii ay baahida Itoobiya u adkayd oo dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliyana meelaha qaarkood ka sii socday ayay ahayd oo iyagu markay yimaadeen 78 79 80ga horraantiisii wardheer Soomaalida haysatay mar dambaa wardheer laynaga saaray markii wardheer laga saarayna halleeyo kala loo soo fadhiistay meelaan waxba ka fogay dabadeedna waxa la siiyey markaa ahmiyadaadu weyn iyo taakuleen aad u badan ayaa la siiyey oo Itoobiya ba siisay
wixii Soomaaliya laga qabsaday wixii ay ka carartay wixii iyagu ay hayeen wixii baa la isugu daray wixii baa la isugu daray waay xilligaa waxaa jira nidaamkii markaa loogu talagalay inuu nidaam hanti wadaagga noqdo oo ayaa Itoobiya aad uga abuurmayay markaa waxaa jiray heshiis la yidhaahdo saddex geesood tripartite agreement saddex geesoodkaasi marka waxa weeye waa Yemen waa Liibiya waa Itoobiya saddex geesoodkaasina wuxuu kaalmeynayay SSDF buu kaalmeynayay waay markii ugu horreysay horta SSDF ma ahayna SSF bay ahayd waay guruub dambe oo xusbigii hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed ka tirsanaa oo ruushkii la eriyay ka cadhooday oo ruushkii waay qoradaasoo nidaamkii kalitaliska ha ka cadhootay oo la isku horgudiyey waay oo ninkii Cabdullaahi Yuusuf ay dileen Cabdiraxmaan Caydiid ka mid ahaa Jaamac Saalax Allah raxmo uu ka mid yahay maxaan ku dhahdayay iikar uu ka mid yahay ninkii sameeyay heestii Cabdi Maxamed Amiin hay markii dambena caynaanka daa sameeyay uu ka mid yahay rag fara badan oo aqoon Saciid Jaamac ka mid yahay markii Ingiriiska joogo halkan sheegada Saciid Kucmadi uu ka mid yahay Umar Salaad uu ka mid yahay rag fara badan oo aqoon-yahana ayaa isugu tagay marka waxay ka sameeyeen cadan bay waxay ka sameeyeen urur la yiraahdo shaqiila isbal umaal ayaa ka sameeyeen oo laftiisa xagga hanti wadaagga u badan dabadeedna wax la wada hadlaba Ethiopia la imees dhiba la wada hadlay dabadeedna iyaguna waxay dhahdeen ururka inta dimuqraadiga salvation bay ku darsadeen badbaado waay dimuqraadi Somali Salvation Democratic Front SSDF waxaa ka horreysay maxamed kaahinu cabdillaahi yuusuf taanu ka noqon meesha mustafa xaaji nuur baa waay mustafa xaaji nuur wuu inqilaabay ya waay jigjiga ayuu ku inqilaabay qoladiina waxba kagama jiraan buud Cabdullaahi Yuusuf waay inqilaab ku qabsaday dabadda qoladaasina halkaasay ugu yimaadeen markaa dabadeedna xilligaasay ka faa'iidaysteen dugsiyo tababar baa la siiyey tababarayaal fara badan oo aad aqoon u lahoo ciidamada Itoobiya baa la siiyey SSDF dabadeedna Liibiya ayaa kaalmada dhaqaalaha bixin jirtay SSDF markaa 3 biloodkii 4 milyan ama ka badan oo dollar baa la siin jiray waanu raashinku ku jirin waanu shidaalku ku jirin waanu dawadu ku jirin waanu dariisku ku jirin waan gaadiidku ku jirin annu markii aanu 4 tayada tagnay ciidankii ugu horreeyay markaa u soo degay Cabdullaahi Yuusufna Liibiya markaa ka yimid dabadeedna waxaanu kula kulannay horraantoodii u horreysay qalabkii jigjigaanu kula kulannay hubkii uu markaa soo siiyey waxaa ku jiray 2 batalyan oo beebeeye ah 6 2 batalyan oo taangi ah ya mid artillery ah oo artilleriga range-ka ugu dheer oo la yiraahdo 130 mm 130 mm waxaa ku jiray dhowr iyo 20 BM21 waxaa ku jiray shilka suu baraan dheesheeke ayaa ku jira konton waxaa ku jira 50 gaadhi oo star ah oo Polish ah oo 12 tan ah waxaa ku jira 50 Toyota waxaa ku jiray intaas soo jiib BM yaro annaka markii dambe la siiyay ya koodii bay 6 mid naga siiyay markii iyadoo ay rawaxday khadka ay ka baxday alaabtaasay haystaan Cabdullaahi Yuusufna Liibiya markaa ka yimid maalintii ugu horreysay intaan 4 tayadu Addis Ababa isugu tagin ayay Shiine Axmed Dhagaxyaba u yimi soo salaameen annana waxay dhahdeen qoladaas ay imanaysa waanu soo sugnay dabadeedna markaanu annakuna nimi ayaa
nala marti qaaday waay SSDF iyo odayaal iyo madaxdeedii iyo golayaasheedii iyo rag badan oo odayaalahoo raggii Nairobi ka yimi baa maxaan ku dhahday guriga Cabdullaahi Yuusuf geeyo fadhiisanay aanu soo warramay waay iyana way noo warrameen anana meeshan de markaanu ka tagnay waayaheedii iyo wixii jiray waanu uga warramay markaa de in meesha ay dawlad tahay SSDF ayaa naloo sheegay markii fiidkii aanu tegaynay ayaa nala qaadayay baa nagu yidhi odaygu wuxuu idinku imanayaa hodheelka ya marka hodheelkii buu noogu yimi Ethiopia Hotel oo nalagu dejiyey dabadeedna wuu noo yimi Cabdillaahi wuu noo warramay Allah raxma dabadeedna wuxuu noo sheegay hadalladiisi ka mid ahaa anigu ciidan jabhadeed ma haye ciidan dawladeed baan hayaa bahasha jabhadana annagaa ku soo wareernayo berigii aanu bahasha bilownay ee awrayaal iyo beri ay ciidan awr wata aagaa galdogob iyo dogob iyo gaalkacyo ku beegan ay ka howlgaleen dabadeedna khasaare aada u badani gaadho xoog loo qabqabtay iyo arrinkii buu sheegay ya hadda idinku garan maysaane arrinkaa dhibtaasaa bahalka naga soo martay dabadeed annaguna anu warrin waxaan ku nidhi annagu waxba maanaan qarinayninoo ciidan hadalkiisina wuxuu ku daray qorshihii dalka lagu qaban lahaa shandadan aan sido ayuu ku jira 6dii bilooda u dambeeyey ayuu ku jira asana intaanu yar maqmaqalayo balaan islaam haddayna cidi ka timaadii arrinkaa ay yar eegtaan dee idinkuna saraakiil saraatiino meeshii waa kaasoo dee qorshaana weydun ila yara eegiyo dib baynu u eegi ya dee idinkuna gaasaskan jiro uun baydun ayuun baydun ku fayli anigu markaa macluumaadkooda oo dhan baan hayaa waayo waxaana madaxii sahanka ee qaybtan 26aad marka waxay xaggaa ku hayaan oo dhan xaggaa ku hayaan oo dhan baan ku hayaa dad badan oo ka soo galay iyo dad badan oo annaka noogu jiray iyo dad badan oo aanu haynaano way jiraan markani maxaan ku idhaahdayey jigjiga ku shirayaan annaguna waanu la shirayn sirtoodii baa dhinaca kale ka haysa waay oo maxamed tiiti oo imika halkan madaxtooyada ka shaqeeya siyaasiyiintii hore ilaa iyo xidamaadkii ahaa xilligii Allah raxma madaxweyne maxamed ibraahim cigaal xokayaha golaha wasiirada ahaa imikana xokaynta madaxtooyada jooga wuxuu ahaa raggii SSDF ee madaxda ahaa ee joogay xariir maxamed biixi oo madaxdii SSDF ahaa oo raggii ka soo baxay ahaa oo imika halka Soomaaliland intaynu joogna dhintay wuu nala joogi ninka lagu yidhaahdo Mustafa Xaaji Nuur markii uu soo baxay halkana laga diyaariyo maxaan ku dhahday uu ka tegey markii de meesha inta la inqilaabay markaa macluumaad fara badan saraakiil badan oo ka soo gashay halkan qaybtan ku hayayo dib aan ku maamuli jiray oo aan dawar bixintoodii oo dhan ka hayay shadadan ku leeyahay halkan qorshuu ku jira waxa ku jira dad dhinaca kale ku marka annagu aanu la hadalay waxaan xasuustaa qolkii aanu kula shirnay qolkii Axmed Dhagax buu Ethiopia Hotel 115 wali nambarkiisa waan xasuustaa waa afartayadii waa isaga nin baloyan la yiraahdo oo ay isxigaan SSDF taha marka intuu noo warramay wuxuu yidhi arrintu halkaasay maraysa anu markaa waan noo warranayo anaa laygu yidhi u warrano waxaanu ku nidhi dee annagu galabta qorshana sida dadku maanaan sidanin meeshii aanu ka nimi iyo dhibaatadii dadkii Soomaaliyeed haysatay iyo taliskaa kale haystayna waanu ka warranay adiguna de waa dadkii warramayo imikana waa adiga noo warramaya soomaad garan anu hadda waxaanu kugula talinaynaa qorshaha aad sidato ee shadadaada ku jirta tuuladii yareeda balifintar Cabdullaahi Yuusuf ku gaari maysid baan ku
aniga iyo shiine iyo dhagax intayaduba qaybtaa baydhadho ayaynu ka shaqayn jirnay dhaxa واللوجي بطلع warsamadeen balifinter waa tuulo yaro galdogob iyo bayra u dhaxaysa واي yaa صح waxaad ka 15 kilomitir u jirta واي aku cabdilaahi taa ku gaari maysid samad garan واي adiguna annaka korneyladan maxaan ku dhahdaayay aad sheegaysana waanu ahayn واي hargeysa iyo burciyana waanu joogin qaybtaa waqooyina madax baanu ka ahayn waxaa noo soo baxay waadigii qaybta 26aad joogi jiray madaxdana ka soo ahaaye inaanaan tuuladii yareedee badarwanaa qabsan karayno dabadeedna sidaasaanu uga soo lugaynay waxaa soo taangiyey iyo waxaa soo ciidan iyo waxaa haa dameerayaashii iyo hawsha idinku aad soo gashaanna waxaan leeyahay awrarayaashii bal annaguna iminkaanu isleenahay ciidan kale oo dameerayaal rarta ضمير رصيد أول hadde maxaan ku rahdaa sameeya aanu waxaanu kugula talinaynaa waxaanaad haysay ciidanka dowladeedda wax naga si ya ilaa halgan soomaaliyeed baynu wada wadnaaye talis qoro ummadda u wada cadowna waynu la dagaalamaynaaye kaa aad iminka haysa wax naga si annaguna deegaanka aanu isleenahay waa laydinka taageeraya ilaa halka u baryaysaanu isla dhigaynaayo de waxaanu odhanaynaa walaalaheennii inaga soo horreeyena inamay xumaynina wayna wanaajiyeenoo waxaasayna siiyeen yaa waa laba aaggaa gobollada dhexe iyo kaa koonfureeda idinku aad joogtaanee baaray iyo kan aagga waqooyiga ee hargeysa iyo 26aad ku beeganna wafti labada jabhadooda intaynu isku barxano aagoo dhan ha soo wada marto soo qiimeeyeen markaa wixii damee dadka ha soo wacyigeliso على الأقل ciidamada inta aynu isleenahay in taageerisaba marka ay nagu soo biiraysa laawac fara badan baa gaadhay la wixii ka dhacay baa ka dhacay واي عقب جواب maya kala tagnay واي subaxdii baa dagaalku lagu bilaabay jabhad maaha qoladan xagga ka imanaysaana sacuudiga iyo maxaan ku dhahday rasciintii iyo reer galbeedkii bay ka yimaadeen waa qabiil yar waa kan meesha iyagaa markaa haysta واي nin walba daad lacaga baa sidaa lagu yidhi dadkuba iyagu u shaqeeya cidiba waa nala hadli weydi إثيوبيا haa واي annagu markaa mingiste codsiga iyagii si fiican buu u fuliyey hawsha iyadii si fiican bay u bilowday taliskii qolada herar si fiican buu noola shaqeeyaa annaku intayadaa أنتي نير بارشو annaka intayadaaba naga badan yaa واي ayaga lacagti way korrabt garaysay jabhadii waa lagu kala sarreeyey rag waxay ku jiraan hudheella 5 star oo kuwa nufuudda wasiirada iyo madaxweynayaasha lagu soo dejiyo واي qaar maasaradiisiyo iyo BMW BMW iyo Peugeot bay wataan so Volvo bay wataan Land Cruisers bay wataan yaa samad garanay anigu gaadhiba ma lihin والله جينس ونقول هرري در لمنا هرري تشجعنا وحنو كلا رعنا بسك حرشين إيه كاشامة إيه بالداية إيه نحن رعنا قاعدة حمول كيد دوينه هاي اللي هي أيه ندوش فولا والله ده يروي نلا هذا بلا ده الشركة ماله قبلنا يه سمعت كلام أنك جوجو شيء هذا نوح الحرن أيوة قريب بدن بيهود نلذو دنا ويكشرن أنت سببنا إحنا لقيسي هالقري قري وناسنا معقول هذا أنا صلي كده كانوا كاسة حفيز لأنه أقولي أنا سحنا إنه عمتنا إنه لاقو كريه لما تنقف نود راشين كود نو يلا